anigoo kaashanaya qabradihii kala duwanaa ee warbixinadii aan ka soo ururshay anigoo kaashanaya qabradihii kala duwanaa ee galmudug kuna tashanaya kaalmada rabbi iyo taageerada reer galmudug ayaan go'aansaday inaan isku taago tartanka madaxweynaha 4 sano ee soo socota hogaamin doona dowlad goboleedka galmudug. walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin inkastoo aan barnaamijkayga siyaasadeed ka hor sheegi doono baarlamaanka galmudug ee la dhisi doono haddii rabbi noo ogolaado haddana waxaan jeclaystay in aan si kooban isu dul taago arrimaha aan ahmiyadda siin doono haddii rabbi ii idmo qabashada xilka dowlad goboleedka galmudug. mudanayaal iyo marwooyin waxaan aaminsanahay in shaqo kasta oo qaran heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed guusha laga gaaro ay ku xiran tahay si cidda hawshaas lagu aamino. sidaa darteed markaan garawsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada reer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyey galmudug ee dhinacyada amniga siyaasadda dib u heshiisiinta cadaaladda iyo dhismaha hay-adaha dowladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan ka soo shaqaynayay bulshada dhexdeeda iyo hay-adaha dowladda inaan la imaan karo siyaasad iyo howlfulin looga gudbi karo dib u dhaca haysta reer galmudug. arrimaha amniga sida aad wada og tihiin amnigu waa aasaaska koowaad ee bulsho u suurtagelinaya inay la timaado horumar fursadna u hesho xaalad ay kaga gudubto caqabadaha siyaasadeed dhaqaale waxbarasho caafimaad iyo wixii la mid ah taasoo ah haddaan amni jirin nololi ma jiro. sidaa darteed haddii rabbi ii ogolaado inaan hogaamiyo dowlad goboleedka galmudug amnigu wuxuu noqon doonaa ahmiyaddayda koowaad labaad iyo saddexaad. waxaan tayeyn doonaa laamaha amniga si ay u noqdaan kuwo awood u leh dhowridda amniga iyo hirgelinta sharciga. waxaan sidoo kale ahmiyad aan intaas ka yarayn siin doonaa xoreynta deegaanada ku jira gacanta nabaddiidka waana ka guulaysanaynaa haddii insha allah. waxaan aaminsanahay in dowlad goboleedka galmudug xilligan baa u baahan yahay siyaasad degan oo ka madax bannaan kooxaysi loona lagu kala qaybiyo dadka reer galmudug. sidaa darteed maadaama aanan anigu koox gaara ah ka tirsanayn oo aan ahay siyaasi u siman yihiin dhammaan reer galmudug waxaan rumaysanahay inaan horseedi karo siyaasad degan oo keeni karta inay reer galmudug iyagoo midaysan xoogga saaraan sidii ay galmudug uga hirgelin lahaayeen maamul hanaqaad ah oo awooda inuu wax badan ka qabto baahiyaha ballaaran ee ka jira galmudug. dib u heshiisiinta mudanayaal iyo marwooyin ummad aan heshiis ahayn wax ma wada dhisan karto maamul ma wada wadaagi karto. sidaa darteed waxaan ahmiyadda weyn siinayaa wadidda iyo dhammaystirka dib u heshiisiinta hadda ka bilaabatay oo looga baaqay shirka dib u heshiisiinta Dhuusamareeb iyo baaqii shirkii nabadda ee Hobyo. waana soo dhaweynayaa labadaas shir. waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa in aan u mahad celiyo dhinacyadii gacanta ka geystay dadaaladii dib u heshiisiinta ee galmudug sida madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo
علماء الدين كأهل السنة والجماعة ويقوه الريان مع المحمود شيخ حسن iyo Sheikh Shaakir iyo sidoo kale wax garadkii shirkii nabadda ee Hobyo waxaan haddii rabbi idmo xilka iska saari doonaa in colaadda khilaafaadka lagu bedelo isjacayl iyo wax wada lahaansho ku dhisan walaalnimo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha si aan wax badan uga bedelno nolosha iyo dhaqaalaha deegaanada Galmudug waxaan diiradda saarayaa inaan si ambaqaado mashaariicda horumarineed iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale anigoo xoojinaya dadaal kasta oo lagu xaqiijin karo in isbedel muuqda oo dhanka mashaariicda horumarinta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale wax looga qaban karo waxaan si gaar ah u ballan qaadayaa inaan mashruuca dekedda Hobyo siin doono ahmiyad iyo waqti suurto geliya inuu noqdo mashruuc dhab ahaan u hirgala insha Allah dhismaha hay'adaha dawladda mudanayaal iyo marweyn maamul kasta oo awooda inuu fuliyo waajibaadkii loo idmaday waxa aas u ah tayada hay'adihiisa dawliga ah sida darteed dawlad goboleedka Galmudug oo si dawlad goboleedka Galmudug u noqoto mid guta waajibaadkiisii loo dhisay waxaan ka shaqayn doonaa dhamaystirka iyo tayeynta hay'adaha dawladda waxaan hawlgelin doonaa aqoonta iyo xoogga shacabka reer Galmudug oo aan siday ay ahayd in looga faa'iideysto taasoo suurto gelinaysa inaan helno hay'ado dawladeed oo ay maamulayaan dad aqoon xirfad u leh oo gudanaya waajib gudashadoodii loo idmaday adeega bulshada waxaan waajib u arkaa in dadaal kasta oo aan u qaadi doono dhismaha Galmudugta cusub aan ku higsanayo sidii loo heli lahaa maamul madax ka shaqaynaysa sidii ay shacabka reer Galmudug u heli lahaayeen adeega asaasiga ah ay u baahan yihiin ugu dambeyntii mudanayaal iyo marweyn baaq waxaan halkaan fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan baaq uga jeediyo shacabka siyaasiyiinta culumaa diinka hogaamiye dhaqameedyada dhalinyarada haweenka iyo waxgaradka reer Galmudug waxaan leeyahay Galmudug waxay ku jirtaa xilli xasaasi ah oo laga gudbayo marxalad kale sidaa darteed go'aan kasta oo maanta la qaataa wuxuu saameyn ku yeelanayaa mustaqbalka fog waxaan aaminsanahay in maanta ay reer Galmudug kala dooranayaan hoggaan midnimo iyo hoggaan khilaaf hoggaan nabadeed iyo hoggaan qalalaase hoggaan horumar iyo hoggaan dib u dhac hoggaan kooxeed iyo hoggaan shacab waxaan rumaysanahay inay reer Galmudug gaareen bisayl iyo khibrad ku filan oo ay kaga weecan karaan waddo la yaqaan meesha ay ku dhammaanayso oo ah kala qaybsanaan dad iyo dal maanta waxaa loo baahan yahay waayo arag isku wadi kara Galmudugta cusub
iyo siyaasi garanaya mashaakilka jira iyo sida lagu xallin karo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin mudanayaal iyo marwooyin. waxaan rabaa inaan ku daro waxaa jira siyaasiyiin mucaarada oo ka shaqayn jiray khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug haddana ku doodaya waxaan la shaqaynaynaa dowladda dhexe. marka taas waxaan u arkaa inay tahay laba wajiilayn iyo raadgadasho. haddii mucaaradnida xun tahay inaad shalay aadan ma ahayn, hadday fiican tahay ku adkayso. marka waxaan leenahay reer galmudug wax kale iyo war kale midna uma baahna. aad iyo aad baa u mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin. waktigii dheeraa ee aad fadhiseenna wayn kaga cudur daarayaa, wayn kaga mahad celinaya taageeradiina iyo adkaysigiina iyo sidaa u doonaysaan oo ay wax badan u jeceshihiin inay toosto, hagaagto, hormarto galmudug. aad iyo aad mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq.